السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب القالية ميلك ستيجوكتين سودة وهذا channel كيني حارنت عنتظر عافماتك ولاشين شكري عادم بوله أصحاب تقييمها بدن علينا حولنا قصعة سودة وهذا ندحيا صومانتو حين أنت أسي جوز جرين توبي جانا حينك عد صنايع هنا سبسكرايب سميسين لايك جريسين شير جريسين channel كيني عسكله صوم حسن تيدين هذا سميسي هذا سمينا أنت سي سمين دحيا صومانتا توبي جانا حواي asma mayaasha lagu ogaado vitamin C ga inuu kugu yaryahay because topic soo soo laabtay markasta inta ay xanuunayso vitamin C ga maxaan ku ogaadaa inaan inuu iga maqan yahay jirkeyga maanta inay soo wadaa soo marka ku soo dhawaada inagoo mahadsan vitamin C ga horta saan qasayno aad iyo aad ayuu u yahay muhiim qofka bini'aadamka jirkiisa ugu yahay because waa waxyaalaha oo ka ciyaara qofka xitaa difaaciisa jirka inuu kor u qaado haddii vitamin C ga kugu yaryahay marka qatar badan ayaa ku jirta soo waxa ugu horeysa oo lagu ogaado waxa waaye lahay vitamin C ga inuu kugu yaryahay waxa la wajiga dadka nabaraha ku leh iyo wax guduud badan spot ku leh haddii aragtid ogow vitamin C ga yar maanta waa ismaamayaasha vitamin C la'aanta hadda jirkaaga tahay ayaa rabaa inaan ka hadlo kale waxa waa asxaabta qaaliga ayaa la dhahay qofka waxaa ku bilaabanaya markuu vitamin C ku yaryahay lahay hadda asmaamahan ka hadlaynaa isla soconaya timaha ayaa ka daataa la dhahay waxaa arkaysaa timo badan oo qofka timo qurux badan lahaan jiray hal mar ayaa timo waxa ku bilaabanaysa inay ka jajabaan ay ka daataan oo qofkii timilaan ayaa ku dhacayso kale asxaabta qaaliga waxa lagu ogaadaa ayaa la dhahay qofka gabow ayaa ku dhaco collagen ayaa la dhahaa wejigiisa isbedel ayaa ku dhaco timahan daadanaya xitaa waxay ka mid tahay collagen kaas marka qofka vitamin C uu ku yaryahay wejigiisa gabow badan ayaa kusoo degdegayo uu qabin soo markaas waxaas isku arkaysa maamayaashaas la ogow inaad tahay qof vitamin C ga aad hoos u liito kale waxa waa asxaabta qaaliga dry aku dhacay dry xalwada jirkiisa bila oo jirkiyaaga haduu haan jiray wajigaaga waji oo xoogaha qof saliid leh ama dhaxdhaxaad ah jirka ayaa qalalayo ka noqonayo hadaa isku arkay jirkaaga oo qalalay oo ka noqonayna ogow vitamin C ayaa ku hayso waxa kale lagu ogaadaa ayaa la qofka vitamin C inuu ku yar tahay ama vitamin C giisa inuu loo yahay jilbaha ayaa xanuunay oo kaaraay maanta dhan oo qaraacayo waxa kale isku arkaya jilbahana way bararayaan barar badan ayuu ku arkaya soo hadaa waxa isku aragtid ogow vitamin C ga ayaa dhulka ah waxyaalaha kale oo lagu ogaado in vitamin C ga inuu dhulka ku jiro oo vitamin C ku yaryahay ama hoos saaid yahay waxa waaye qofka nabar markuu ku dhaco nabarkiisa dhaqso ma bogsoodo ayaa lahay wax qaadanaysa waqti dheer uu ku bogsoodo ama meel isku dhufatay ama meel ku jeexday bahashi way bushbushtay waqti badan ay qaadatay waxa ogaataa vitamin C ga ayaa low ah oo hoos ku jiro waxyaalaha kale ay asxaabta asmaamayaasha kale lagu ogaado waxa waaye lahay vitamin C ga markuu yaryahay waxa lafahaaga ayaa daciif noqonayo the reason why xitaa loo dhahay xitaa qofka jilba xanuun ayaa ku dhacayo maanta nin kaar xanuunayo because lafihii ayaa yaraa oo wuxuu noqday daciif ayuu noqday soo lafa xanuun hadda isku aragtid iyo jilba xanuun ugu waxa ogaataa vitamin C ga ayaa hoos ah waxyaalaha kale lagu ogaado ismaamayaasha kale lagu ogaado in vitamin C ga uu hoos ku jiro waxa waaye ciridkan wuu diiday qofka markuu cadaysanayo ilkahana way xanuunaan way liiqliiqdaan ilkaha xitaa dhaqso ayay jajabaan vitamin C ga ayaa hoos ah la socda waxyaalaha kale asxaabta qaaliga lagu ogaado waxa ka mid ah immune system ka qofkaas waxa laga wada difaaca jirkiisa wuxuu noqdaa haday inaan ku bilaaway daciif waaye xanuun kasto yar meesha maraba ku dhaca hadii hargab yar duriyar ama hargabka marmar uu ku dhaca qof kasta bini'aadanka laakiin waxa ka wada xanuun kasta oo u daciif yahay wax kasta daciif ayuu noqonaa because taas waxa tusaysaa qofkan vitamin C giisa ayaa ah low hadaa vitamin C ga xoog leedahay difaaca jirkaaga xoog ayuu leeyahay soo marka qofka waxa kale ku dhacaya la dhahay asxaabta qaaliga dhiglaan ayuu noqdaa anemic ayaa ku dhacda la dhahay anemic ayuu badnay because iron ka ayaa ku yar waxa kale ayuu dareemaa marka vitamin C ga uu jirka ku yaryahay wareer badan xanaaq badan maanta dhan labo badan because vitamin C ga ayaa ku yar la soco waxa kale qofka ku dhaca la dhahay hal mar qofka jirkiisa oo vitamin C ga ku yaryahay hilib badan ka dhaco hal mar ayaa hilibkiisa dhulka galaya qofkii waxa laga yaabaa normal iska ama hilib qurux badan lahaa ayaa waxa ku dhacaya la dhahay زائد وأيو عاتوبايا hal mar waxa laga yaabaa inaan qof caadi ah oo
hilib badan ayaa jirkaaga hal mar ka dhacayaan expected aa la dhahay. waxyaalaha kale oo ku dhaca qofka waxaa waaye stresskiisa ayaa badan, depression ayaa maanta dhan qabaa. waxyaalaha qaarkeed dadka aan ku arkay waxaa waaye because fitamiyaal badan oo hoos kaa jira oo kaa dhacsan ayaa u maleysaa waxyaalo kale inay ku haystaan, waxyaalo kale kuma haystaan. fitamiyaashaada jagaray la soco dhakhaatiirta, because fitamiyaasha xitaa waa la jegaraya, waa la ogaadaa. hadda vitamin C-gan oo kale qofka hadduu uu ka yar yahay oo vitamin C-gaaga uu yahay asmaamayaasha ina vitamin C lahayn aad ku jirto depression, stress, maanta dhan buuq, moodska oo maanta dhan isku wareersan, waa vitamin C la-aan ayaa ku hayso. soo marka vitamin C la-aan ayaa qofka xitaa wuu bararaa ayaa la dhahay, barar ayaa jirkiisa lagu arkaa. soo marka waxyaalahaas oo dhan haddaa isku aragtid asxaabta qaaliga la soco vitamin C-gaaga ayaa dhulka ah. soo vitamin C-ga cuntooyinka laga helo iyo waxyaalaha kor u qaada iskana waan soo badin doonaa, but asmaamayaashan haddaan kasoo hadlay waa asmaamayaasha qofka vitamin C-ga ku yar yahay oo lagu ogaado inay vitamin C-gaaga oo zero yahay. even faruuryahan way jexjexmaan, way cadaadaan. qofka maanta dhan wuxuu isla wadaa vaseline mise roseto mise wuxuu marsanaya, laakiin ma oga inuu afkaba hadduu ka buko qofkaas oo xanuun kale uu ka qabin qofkaas. iridka iyo ilkaha waa asmaamayaasha ugu weyn oo lagu ogaado qofka inuu vitamin C-giisa oo dhulka ku jiro. marka haddaa waxaas isku aragtid waxaa ogow ina vitamin C-gaaga uu dhulka yaalo. sida ugu dhaqsaha badan inaa isla tacaashid ayaa loo baahan yahay. wax weyn way tahay caafimaad ahaan haddaan runta inii sheego, laakiin sida loo saciidiyo aad ayay u fudud tahay. waa cuntooyinka inaad qaadatid oo loogu talagalay, cuntooyinka loogu talagalay vitamin C-ga ah. soo marka cuntooyinka loogu talagalay vitamin C-ga waa inay soo part 1 aan ka dhigayaa, part 2 ayay soo celinaya. hadda wax ka faa'iideyn asxaabta qaaliga, waan arkay Soomaalideena oo dhan maanta dhan ilkaha iyo faruuryaha iyo iridka ayay ka sheegtaan. run ahaantii inay sheego iyo gabdhaheena xitaa wajiga maanta dhan wax isku cadeeyaan nabara igu buuxo waa vitamin C la-aanta ka maqan waaye. hadda caafimaad ahaanta adiga ogaan lahayd way ku fududaan lahayd. waxaas dhan waxyaalo badan ayaa isku daaweyn kartaa adoo waxyaalahaas oo jirkaaga damage u keena ama kansarka u keena ismarinaysid. soo marka dadka ka bar soo asxaabta la sheekaraya dadka siiba Soomaalideena zaid ay vitamin C-ga dhulka ugu nahay. maamooyinka jilbaha laga haya, gabdhaha yar jilbaha laga haya, lafaheena weak waaye because ma helna xitaa qorax fiican. waxaas dhan waa isla shaqeeyaan. soo marka waxaan rajaynaa inaad ka faa'iideen, dad ka faa'iideen bakhiilin ha noqon, inaad sheekaraya dadka si uga faa'iideystaan dadka ummada muslimiinta ah. soo halkaas ayaan kusii guda baxayaa. meesha nagala socotiin waa channelkeeni xarunta cuntada caafimaadka, waana inii soo deynayo walaashin Shukri Aadan Bule. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.